Puntland ayaa sheegtay in shirkadihii iyo shakhsiyaadkii lacagta siin jiray kooxda Daesh ee ku dhumaalaysata buuraleyda gobolka Bari ee Puntland inay cadeymahoodii ka heleen saldhigyadii ay ka eryadeen kooxda Daesh ee ku dhumaalaysata buuraleyda gobolka Bari ee Puntland. waxaanu ogaanay shirkad kasta oo lacag u didhay. taliyaha ciidanka booliiska Puntland Sareeyo Guuto Muumin Cabdi Shire oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay heleen shirkadihii iyo shakhsiyaadkii sidoo kale kooxda Daesh siin jiray lacagaha ay ku joogeen gobolka Bari ee Puntland. waa ku soo dhaweynaya marka hore wax ka codsanaya in muuqaalkan like saarto sidoo kale aad ku soo biirto YouTube-keena subscribe dhahdo gambalelkana furto si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ee halka ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo taliyaha ciidanka booliiska Puntland Sareeyo Guuto Muumin Cabdi Shire oo saaka oo Jimcaha warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay heleen shirkadihii iyo sidoo kale shakhsiyaadkii kooxda Daesh siin jiray lacagaha ay ku joogtay Puntland gaar ahaan buuraleyda gobolka Bari ee Puntland. sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in kooxda Daesh ee ku dhumaalaysata gobolka Bari ay guran jirtay macdanta ka buuxda gobolka Bari isla markaasna ay cadeymo buuxa ay ka heleen goobihii ay ka qabsadeen kooxda Daesh ay halkaas ku jirtay. sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in ugaarta ku nool buuraleyda gobolka Bari iyo guud ahaan gobolka Bariba ay aad u ugaarsan jireen oo waxa ugu weyn oo ay ku noolaayeen ay ahayd ugaarta ku nool gobolka Bari iyo buuraha hadda ay ciidamada difaaca Puntland ku sugan yihiin oo ay ka sifeynayaan kooxda Daesh ee halkaas ku dhumaalaysata. sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in kooxda Daesh ay samaysatay lacag iyada u gaar ah oo ay isticmaali jirtay. waxa uu sheegay in cadeymahaas oo dhan ay meesha ka heleen. sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in ay dumarka تعدية بدن وجيسن جيران كوحداسي كل ما ليسن جرتي بورلي قبل كبري بوتلان تريها إيو سراكيل كلا أو بدن أو ساك وربعين تلا هذا الشيء أيها شيء جاي. وحياة بدن بعد كسر دعبهاي سلقيدي اللي تجي وحلا هاي عديمة بدن وموتشيني إني وحنا ما في عيان تعدية بدن أي جيسنيين ودمر كأو بدن وحنا أركينا inay hor dugaagii mataqaana ama xayawaanka dhulka ku noolaa gabi ahaanba ay dhammaysteen inay macdan gurteen inay wax badan qaribeen inay lacag fotokoobiya samaysteen iyo dukumiintiyo aan helay inay dunuub badan ka soo galeen dhulalkoodii. waxaan kaloo helay dukumiintiyo caddaynaya lacagihii ay qaadi jireen iyo liisaskoodii iyo dadkii lambaradii ay ku diri jireen iyo waxaanu ogaanay shirkad kasta oo lacag u didhay nin kasta intuu bixiyey lambarkay ku shubtay akoonka ku shubtay intaba. waxyaalahaas ay ciidamadu noo keeneen oo cadeymaha waxay muujinayaan maaragtay jirinimada iyo maafiyanimada meesha ka jidhay. sidoo kale waxa ay ciidanku noo sheegay inay niman baqaya ahaayeen oo cararaya oo kabahooda ka cararaya oo sida cadeymaha ay noo soo bandhigeen markaan aragnay. halkaan isu soo taagay nin maalin dhaweed hadlaayay oo ka hadlaaya meediyaha oo nimankan argagixisada u hadlaayay inaan dhowr kelmo iraado. marka hore horta waxaad sheegtay ciidamada Puntland inay fulayeen oo xabad ridaan. ciidanka Puntland xabadda waxay u ridayaan in qurun adigoo kala horta qarka kaga safaynayaan waana hawshii loo idmaday oo loo soo diray inay safayaan qarka. talabaad waxay tahay haddaadan adigu fulayahayn oo xaarweyne ahayn oo qasweyne ahayn maxaa saaka dameeraha kuu raray 46 saldhig oo aad leedahay oo hadda kanaan taaganaha uu ka mid yahay baad ka caradhay oo waxaad uga caradhay dukumiintiyadii iyo biyihii iyo shidaalkii iyo hantidii iyo raashinkii. haddaba anaa kuu sheegayo waxaad uga caradhay dhulkaadan lahayn edagay nin lahaa kuu yimi weeye. nin lahaabaa u soo kacay maantay nin lahaabaa u yimi nin lahaabaa qabsaday. adigana run baan kuu sheegayaa badda haddaad jeeraad ka gudubto ka hari maayo. aniga iyo ciidanka Puntland waxaanu ku dhaarsannahay inaanaan nin argagixisaahay dalka intuu joogo inaanaan seexan inaanaan fariisan inaanaan harsan. haddaad nin raga tahay soo baxoo dirir. saldhigga kan waa saldhig intaas ay ka maamulayeen. waxa way sawirada ka arki doontaan macluumaadkiisa dheeriga inta markaan ka gudbo howlgalku fajigii koowaad baa weli lagu jira weli ma dhawa far kama qodna. waxaan ku boorinayaa oo aad ugu mahadcelinayaa dawladda Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland
oo ciidamadooda la garab taagan wax walba ay u baahan yihiin oo saboorti ah dhiirigelin ah taas ilaahay mahadiis weeye intaa kadib waxaan rabaa in aan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland inaan u sheego waddankan in lagu soo duulay oo nimanka aragteen hadda janamadu ay ka sheekeeyeen oo dukumeentiyadoodii la hayo oo carabta u badan oo baasaboorradoodii la hayo oo la soo bandhigi doono meelaha ay ka soo duuleen waxa ay doonayaan waxa weeye waa waxa cajiib ah weeye waxa la helay buugaag ay ku qoran yihiin dhammaan degmooyinka Soomaaliya inta isu jiraan taa macnaheedu waxa weeye waddankan qabsanana weeye min bahalkii sheeg Ras Kamboni ilaa Ras Casayr degmo kasta oo Soomaaliya ku taala inta masaafo isu jidho buugaag ku taala baa la hayaa taas marka waxa inay cadaynaysaa inay tahay ujeeddo fog oo jiritaanka Soomaaliya la rabo in lagu dabar gooyo